والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين. حقني وحنون Virtual Academy. حنون Virtual Academy والنقود برتين أنا كسو قبنو ما دوينك لغا برتو مدوك سغسر إلا هير جامعاديد أو سيبا لغا شقايو قيبها calculation كالي ونجوابه دا حقنا أنا كسو بحنا يكو تفاصيرا. saad hadda hore u soo gudbinayd waxaanu xaggan ka soo gudbinay maadada statistics oo taxano noo ahayd oo maraysay qaybteedii labaad iyo aan maanta qaybteedii saddexaad oo xaggan aan maanta aanu ka soo gudbinayna. waxa mawduuceena maanta waxa weeyaan waa measure of central tendency oo siiba ku salaysan qaybtan medianka. saan hore u soo sheegnay waxaanu soo sheegnay ba ahayd measure of central tendency intuu kala baxoon firin doona waa saddex buu si kala baxaa waa mean median iyo mode. marka meankii waan hore baan soo sheegnay maanta medianka ayaan galaynaa bal intaanaan aan mawduucan maanta aanan u guda galin bal fadlan aanu fiirino wixii aan hore aanu soo baranay. saada hore ogsooneyd waxaanu soo qeexnay oon si fiican aanu soo baranay ba ahayd waa maxay ka dhigan tahay frequency distribution. frequency distribution gabi ahaanba laba u kala baxaa waxa weynkaasoo ah mid grouped ama discrete frequency distribution la dhaho iyo mid kaloo mid ungrouped or discrete frequency distribution iyo grouped frequency distribution. isagoo haddana group frequency distribution kan laba usii kala baxaa based on exclusive iyo inclusive daatada mar uu inclusive markuu noqdo iyo mar exclusive noqdo macnaha mar uu continuous group frequency distribution iyo non continuous group frequency distribution iyo labada ayuu sii kala baxaa. sidoo kale waxaanu soo fiirinay ahayd number of class waxa weeyaan data baa nala siiyey datadaas nala siiyey intee class ama intee group aan u kala qaybin karnaa. that means waxaan ku heli karnaa qaacidadan oo k oo ah number of class wuxuu la mid yahay 1 plus 3.322 logarithm of n to the base 10. markaan aan qaacidadan kaga shaqeyno waxaan heli karnaa intee qaybood iyuu daataageenu u kala qaybsan karaa. sidoo kale dan waxaan soo fiirinay ahayd size of class intervalkuna waxa weeyaan daataagii aan soo qaadanay aan u kala qaybinay intaasoo groupkii walba haddana wuxuu leeyahay lambar buu ka bilaabayaa lambar buu ku dhammaanayaa intuuna groupka labaad uuna usii gelin. matalan height baan rabnaa height from 5 up to 10 from 10 up to 12 haddaan leenahay from classka koowaad waxa weeyaan from 5 up to 10 labadaas inta u dhaxaysa maxaa la dhahaa size of the class interval baa la dhahaa. the size of class interval waxaa lagu helaa range over number of class. rangigan waxa weeyaan daataageennii min bilow ilaa aakhir lambarku ka bilaabmo ilaa lambarku ku dhammaado marka labadaa la kala jaro oo loo qaybiyo inta class uu yahay number of class waxaan helaynaa size of classku badanaa interval of 5 macnaha 5 10 15 20 25 20 saas u kala yuu ama 10 interval of 10 20 30 40 50 marka lambarada saa intervalkaas inta uu ka bilaamayo ama intaas ayuu kan inoo sheegi karaa qaacidana lagu sheegi karnaa. haddaan si tafaasiir aanu sii guda galno range waxa uu noqon karaa which means largest value minus minimum value over number of class keenina waa qaacidadii xaggan aan kusoo xusnay saasna kusoo heli karnaa bay ka dhigan tahay. class boundary baa haddana xagga jira. class boundarygun waa maxay? class boundarygun waxa weeyaan classka koowaad iyo classka labaad haddii wax maxaa gaabka u dhexeeya ayaa la yidhaahdaa class boundary. macnaha matalan example waxaan haysanaa height from 5 to 10 from 11 to 15 markaan saan raano eg I assume from 5 up to 10 from 11 up to 15 maxaa xaggan u dhexeeya labadan data baaxada waxaa u dhexeeya from 11 marka from 10 up to 11 labada marka xagga lambar xagga lagu dhex sheegay ma jiro marka lambarkaas waa exclusive. markuu exclusive yahay
class boundary baa xagga ayaan ka leenahay ka dhigantay. Then class boundary is nothing waa differencesigaas. Sidee marka ayaan ku heli karnaa? Waxaan ku heli karnaa waa laba siyaabood baan ku heli karnaa, which is the upper class limit plus or minus deviation ayaan ku dari karnaa, iyo lower class limit kana waxaa lagu darayaa lower class limit minus 1/2 deviation ka markaan ku darno waxaan helaynaa class boundary baan helaynaa. qaybtii ugu dambeysay ee ahayd waxaan soo sheegnay ba ahayd mid value or class mark. Mid value ama class mark mar walba oo la shaqeynayo group frequency-gaas marka la shaqeynayo waxa mean mode iyo whatever marka laga shaqeynayo waxa loo baahan yahay lambar laga duulo. Lambarka laga duulo wax weeyaan labada lambar baa la isku darayaa, means waxa lower class limit iyo upper class limit la isku darayaa laba loo kala jarayaa. Lambarka labada loo kala jarayaanu qaadanaynaa as marka lambarkaasaan kasoo dhisaynaa frequency distribution aan ka sameynaa, graphkeena ka sameynaa, aan calculationkeena ka sameynaa ka dhigan tahay. fadlan qaybtani waa qaybtii ugu horeysay yaan kusoo sheegnay ama kusoo baranay. qaybtii ku xigtay qaybtii labayd ahaydna waxaan iyadana aan kusoo baranay waxay ahayd waa meankaasoo usii kala qaybinay laba aan group frequency distribution iyo group frequency distribution. Marka meanku isaga laftirkiisa wuxuu usii kala baxayay saddex buu usii kala baxayay, which is arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean iyo qayb kaloo afraad oo ahayd weighted average mean iyaan soo sheegnay baan soo baranay. Marka arithmetic mean kan waxaan ku heli karnaa waxay ahayd summation of x oo loo qaybiyey number of observation. Datagina la siiyay intaan isku soo darno inuu qaybinayna tirada inta ahaayeen waa meanka markaan helayno. Haddii frequency uu leeyahayna number walba frequency inta baaxadda uu soo noqday ayaan ku dhufanaynaa, markaa baan isku soo wada daraynaa, markaa baan isku qaybinaynaa tirada inta ahaayeen. Markuu uu yahay waa maxay? Waa ungrouped. Markuu uu grouped uu yahayna waxaan sameynaynaa kan labadan imika waa isku mid, waxay ku kala duwan yihiin meesha xi xaggan waxay noqonaysaa mi. macnaha waxaa looga jeedaa goordhowed waxaan niri ahayd mid intervalka markaan raadinaynay maxaan ku raadinaa baan niri intaan labada isku darno ayaan u kala qaybinaynaa. labada lower class boundary upper class boundary intaan isku darno ayaa laba u qaybinaynaa. macnaha markuu group yahay the only difference is that for group kan oo maxay laba ka dhigan tahay instead of xi waxaan ka dhigaynaa intaan labada isku darno ayaan laba u qaybinaynaa. Okay, geometric mean isna waan soo firinay ba ahayd. Geometric mean waxaan ku raadin karnaa waa anti-logarithm of summation of logarithm of x over n. macnaha datagina la siiyey waa xi-daas intaas mid walba logarithm of x1, logarithm of x2, logarithm of x3, logarithm of intaan isku wada soo darno iyaan u qaybinaynaa tirada nambarkay ahaayeen. marka lambarkii aan soo helay iyaan antilog markaan ka dhigno dib aan gadaal uga soo feerno maxaan helaynaa geometric meankaasaan helaynaa. markan waa marka uu yahay ungroup data. marka uu group data uu yahay the only wuxuu kala duwan yahay xagga wuxuu leeyahay frequency distribution plus xaggan kala qaybtan xi iyo xatan isku mid maaha. xi-gadan waxay noqonaysaa waa sana kale loo soo helaya. macnaha lower class boundary iyo upper class boundary marka laba inta la isku daro laba loo qaybiyo weeyahan ee maaha kiina la siiyey waa laba lambar. labada lambar baan isku darayna laba markaan soo qaybino iyaan logarithm iyaan ka dhigaynaa. kabacdi f intii ay soo noqotay baan isku daraynaa. mid walba marka sidaa isku soo dardarno iyaan u qaybinaa tirada inta ahaayeen, then anti logarithm markaan ka dhigno maxaan helaynaa geometric mean kan helaynaa. haddana waxaan kaloo fiirinay waa harmonic mean. harmonic meanku waa wax kale maaha, waa is reciprocal of arithmetic mean. arithmetic meanka meeshan xi lambaradii aan isku soo dardaraynay ayaan ka dhigaynaa 1/x. mid walba 1/x isku wada soo daraynaa. markaan isku wada soo darno n-dii aan hoosta ka dhigaynay baa kor ka gaynaa, n baan u qaybinaynaa maxay yaan summation of our xi yaan ugu sii qaybinaynaa. that means harmonic mean saasaa ku helnay marka uu yahay ungroup data. marka uu yahay group data laakiinse xi meeshii xi ahayd aan isku soo darnay 1/x aan ka dhignay ayaan ku dhufanaynaa
baaxadii intii ay soo noqotay ama frequency-ga inta jeer ay mid walba ay kasoo noqonaysa ayaan ku dhufanaynaa markaas isku wada soo daraynaa n-dii aan isla sii qaybinaa saasaan ku helinaa harmonic mean. Then weighted qaybtii ugu dambeysay meanka waxay ahayd waa weighted average mean. Weighted average mean kana waxa weeyaan waa it's an arithmetic mean oo la siirayo fiiro gaara lambaraa fiiro gaara imika x aygan gebi waan soo wada qaadanay laakiin xaggan x ay ma wada qaadanayno qaybtaan qaadanayna waa qaybtee waa qaybta qaybta fiirada gaarka leh inbaa soo qaadanayna intaas isku wada soo dardaraynaa fiirada gaar intay ahaayeenna waan usii qaabinaynaa marka maxaan helaynaa waxaan helaynaa weighted average mean. fadlan intani waxay ahaayeen waa intii aan horey aan usoo baranay. fadlan waxaan u guuda galaynaa maanta cashirkeennii maanta oo ahaa measure of central tendency kamid ah oo cashirkii labaad macnaha wuxuu ku xigaa mean buu ku xigaa oo kani waa median. marka waa measure of central tendency haddaan dib u qeexno waxay kala ahaayeen waa meanku maxay buu yahay it's an average of a set of number which is calculated by adding up all the number in the set and then divided by the total number of value. nambaradan isku wada daraynaa inta number ahayn baan u qaybinaynaa. then meankan waa maanta waa darskeeni aan maanta aan fiirinayno. it's mean waa maxay it's nothing it's waxa weeyaan it is the middle value in the list of number waa lambarka dhexdhexaadka noogu jira daataageena mar walba lambarka dhexdhexaadka noogu jira wuxuu yahay waa median. marka lambarka dhexdhexaadka waa laba noocood buu leeyahay. if the number of observation is even aduu yahay maxaa la sameynayaa labada oo dhexdhexaadka ta la isku daraya laba loo qaybinayaa. haddii use uu oorka yahay simply pick up oorkaas la qaadi. okay ta kale labaad waxaan xaggan aan ka soo fiirin doonaa mawduuca ku xiga noo noqon doonaa waa modekana waxa weeyaan it is the values that appear most frequently numberka ugu muuqaalka badan oo ugu soo noqnoqoshada badan kaasna muxuu yahay waa modekeena. so maanta waxaanu fiirinaa bay noqonaysaa waa measure of central tendency. measure of central tendency oo ah meankana wuxuu sii kala baxaa aan fiirin doonaa waxa weeyaan waa for group data yaan soo fiirin doonaa macnaha isagii oo group data ah isagii oo ah haddana waxaan fiirin doonaa discrete ama ungroup data isagoo marka hore isagoo ungroup ka labaad isagoo group ka saddexaadna isagoo group oo haddana continuous hadana fiirin doonaa iyo qaybta u dambeysa oo ah iyo sidii laga shaqeyn karaa graphical meterkaas yaan fiirin doonaa. marka aan u guudo galno cashirkeennii maanta oo ah median for ungroup data. Median is a value of a variable which divides the whole set of data into two equal parts. Datageena waa ka laba isbarbartan u qaybin kara waxaa la dhahaa kaas waa median baa la dhahaa. marka median for ungroup kan see loo raadiyaa saddex step baa lagu soo raadiyaa. stepka koobaad waxa weeyaan arrange the data in increasing order. mar walba datagaaga waad inaad increasing order aad ku dhigtaa. marka labaadna select the middle numberka ugu dhexeeya waa inaad doorataa. see aad u doorani xaggan laba option baad leedahay. numberka ugu dhexeeya haddii ay matalan ay 10 aad hayso dataaga uu 10 u yahay numberka u dhexeeya waa kii ma garan kartid because maka afraad waa mise waa ka shanaad waa 10. that means haddii numberka aad haysatid hadduu uu odd yahay macnaha 9 7 5 saddex waxaa leeyahay talooyin caynka hadduu yahay numberkii aad datagii haystay waxaad ku helaysaa mediankaaga waxa weeyaan n tiradii inta numberada haysatay oo lagu daray 1 iyo 2 loo qaybinaya. matalan 7 data baad haysatay 7dii marka waa an odd right 7 marka lagu daro 1 waa 8 marka 2 loo qaybiyo waa 4. marka xarafka lambarka afraad marka lagu xusay dataga saa taxanaad u dhigtay lambarka afraad ku xusan wuxuu noqonayaa mediagaagii buu noqonayaa. markuu maxay yahay markuu horka yahay.
markuu even ka yahayna waxa weeyaan saan hore u sheegnayba 4 6 8 10 12 14 lambar caynkaas markuu yahay lama garan karo macnaha ka dhadhaxe lama soo saari karo then marka maxayna samaysid baa loo baahan yahay waxaa samaynaysaa haddii matalan uu 8 ahaa 8 loo qaybiyey 2 waa 4 lambarka afraad xagana 8 loo qaybiyey 2 waa imisa waa 4 4 lagu daray 1 waa imisa waa 5 lambarka afraad iyo ka saddexaad ka afraad iyo ka saddexaad marka la isku daro oo 2 loo qaybiyo iyaad helaynaaba ka dhigan tahay median right simple marka bal aan fiirino exercise-kan meesha lagu soo xusay aan fiirino exercise-kan waxaana la siiyey waa 7 waa 9 waa 6 waa 7 waa 11 waa 8 waa 4 waa 11 waa 7 imse yihiin 1 2 3 4 5 6 7 8 waa 9 xaggan waxaan haysanahay waa 9 baan haysanaa ka dhigan tahay marka 9kan marka koobaad waxaan niri waa arrange the data in increasing order waxaan seebaan u dhigaynaa datagan in increasing order baan u dhigaynaa maxaan ugu horeynaa afartaas ugu horeynaysa 6 baa ku xigaysa 7 7 7 ku xigaysa then 8 9 11 saasaan soo dhigaynaa macnaha ta koobaad waa arrange the data in increasing order so that means 4 6 7 7 7 8 9 10 11 iyo 11 baan haysanaa inay ka dhigan tahay then numberadii aan haysanay waa imse xabay ahaayeen waa 9 markaa xaggan maxaan niri 9ku waa it's an odd maadaamuu yahay qaacidadeyn isticmaalinaa qaacidadana isticmaalinaa inaan miidaagen helo maxaan niri waa 9 lagu daray 1 oo loo qaybiyey 2 macnaha 9 macnaha okay macnaha maxaa la yiri waxaa la yiri baa ahayd xagga maxaa la yiri baa ahayd waxaa la yiri baa ahayd 9 lagu daray 1 waa imisa waa 10 oo loo qaybiyey 2 maxay noqonaysaa waa 5 then keena shanaad ayaa noqonaya maxay ka dhigan tahay keena shanaad baa noqonaya bay ka dhigan tahay ka shanaad waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 marka number 7daas iyaa ayay noqonaysaa maxay ka dhigan tahay mediankeen waa kaas noqonaya then the number of the median maxaynu qaacidadana ku shaqeynaa okay aan ku shaqeynay maxay timid warka waxaan the fifth term the fifth item ama fifth observation ka inoo noqday isagoo ah 7 okay median for ungrouped or raw data example keedii labaad baan dana fiirinaynaa waxaan haddana aan haysanaa 69 82 60 iyo 59 intaas dataageyn saan haysanaa waa imisa xabo 1 2 3 4 5 6 imika xaggan waa maxay noqotay waa even right then saan u shaqeynaa solution waxaan sameeynaa arrange the data in increasing order baan yaan u qorinaa then baan ugu qorinaa numberka ugu yar waa kee 68 baan ka bilaabinaa 69 baan ka bilaabinaa minus 59 baa ka bilaabinaa 60 baa ku xigaya 69 baa ku xigaya 70 iyo 73 saasaan 59 60 69 70 73 82 1 2 3 4 5 6 baan leenahay then our number of observation can waa 6 it's an even marka maxay ayaan ku shaqeynaa ka dhigan tahay qaacidadeena waxay noqonaysaa waa tan waa n over 2's observation plus n over 2 plus 1 observation then 6 loo qaybiyo 2 waa imisa waa 3 6 over 2 plus 1 waa imisa waa 4 ka saddexaad iyo ka labaad buu u dhexeeyaa 1 2 3 ka saddexaad waa ka iyo ka afraadna waa kan macnaha
69 iyo 72 intaan labada isku darno ayaan laba u qaybinaynaa saasuu ayuu noqonayaa ka dhigan tahay median gain. That means 6/2 observation plus 6/2 plus 1 observation. Then 6/2 waa imse waa then waxaan haysanaa third observation plus fourth observation ku dhaxeeya. Third observation iyo fourth observation waa labada marka la isku daro oo laba loo qaybiyo waa 69 plus 70 oo laba loo qaybiyo maxaan helnaa ka dhigan tahay waa 69.5. Mediageena muxuu noqday markaa waa 69.5. I hope inaad fahanteen baan aan rajeynaya. This is our value. Then qaybta xigta median for group data. Isagoo group data laba usii qadayo mid waan idin sheegay baa mid waa continuous midna waa discrete. Continuous waa markuu uu yahay class boundary gu markuu uu 0 uu yahay una waxba u dhaxayn. Laakiin kan waa discrete. Discrete markuu yahay waa 1 to 1 frequency iyo mid walba wuxuu leeyahay qaacido gaar ah. Marka kan see laga shaqeynaya stepya laga shaqeynaya. Marka stepka koobaad marka maxaan sameeynaa marka koobaad mar walba waxaan on raadinaa waa cumulative frequency yan ka saarina ka bacdi find n+1/2 where waxaan raadinaa summation of n-daas raadinaa n-daas n na macnaha total number of frequency ama number of observation keeni oo noo ah maxay summation of f kaasaan soo raadinaa. ka bacdi identify the cumulative frequency just greater than marka maxaan raadinaa cumulative frequency just ka weynaada kan yaan soo raadinaa. ka bacdi maxaan raadinaa kii aan frequency-ga raadinay qaacidada ku aadan x value-giisa raadinaa. marka kaas maxay noqonaysaa kaas wuxuu noqonayaa our median buu noqonayaa. fadlan bal waxaad ku fahmi kartaan exercise-kan aad ku fahmi kartaanba. marka xaggan waxaa la siiyey datagana la siiyey waxa weeyaan weight in kilogram iyo number of students baan la siiyey. weightigii waa kan waa 10 20 30 40 50 60 weight was that number of studentna frequency weight 10 intee ayaa waa 4 20 intee waa 7 30 intee waa 12 40 intee waa 15 saasana loo siiyey. marka koobaad maxaan sameeynaa kan cumulative frequency baan u sameynaynaa. cumulative frequency markaan u sameyno ka bacdi maxaan sameynaynaa waxaan ka dhigaynaa total numberkii cumulative frequency-ga soo qaadanaynaa waxaan +1/2 baan oranaynaa. +1/2 markaan raano yaa numberkii noo soo baxay yaa ka ugu dhow ee ku aadan ee xaggan cumulative frequency-ga lamidka ah ayaan kasoo qaadanaynaa. kaaka ku sii xiga ayuu noqonayaa markaa maxaygeenu mediankeenu. look waxaan sameynaynaa first of all aan niri frequency distribution ayaan sameynaynaa. frequency distribution kaan sameynay waa kan iminka qaacidadii datagii la siiyey waa kaa datagii kaas waa weightigoodii waa kan number of student kii xaggan lagu siiyey waa kan cumulative frequency see loo sameeyaa 4 baad qaadi waxaad ku daray 4 lagu daray 7 oo 12 lagu daray 12 waa 23 lagu daray 15 waa 38 lagu daray 13 waa 51 lagu daray 5 waa 56 lagu daray 4 waa 60 right. then maxaan niri waxaan frequency of markaa kana raadinaa stepkii koobaad waan raadinay. stepka xiga maxaan raadinaa baa la yidhi total number of frequency-gaas cumulative frequency ama number of frequency f-gaas ayaan raadinaynaa oo ah 60 macnaha ama kanaan isku daraynaa oo waa 60 wayna ahayn lambarkaa ugu dambeeya xaggaa yaalloon baan soo qaadanaynaa. then waxaan haynaa stepkii labaad xigay waa kan waan helay waa 60 waan soo helay ka dhigan tahay. then 60 markaan helo maxaan aan sameynaynaa waxaan aan sameynaynaa qaybtii saddexaad baan raadinaynaa n+1/2 baan ka dhigaynaa. macnaha 60 aan xaggan aan helay ayaan ku daraynaa hal oon u qaybinaynaa 2 61 oo loo qaybiyo 2 waa imsu noqonayaa waa 30.5. then 30.5 buu yidhi stepkeenii afraad u noqon doonaa qaybta ka yaro weyn tani yaad xagga dhex raadinaysaa
معناها صدح إلى وتم حكا يسنا سدوني ستيد كونتينيو aad bay uga badan tahay then takayaro weyn waa 38 then 38 kaasa qaadanaysaa muxuu noqota ku aadan x value-giisu oo ah 40 gaas marka muxuu noqonayaa ka dhigan tahay our media-geennii buu noqonayaa. That means 30.5 waxa ku sii xiga waa 31, then the value x corresponding to 38 waa kee buu noqonayaa, it was 14, then 40 is waa maxay, it is our median. saasa looga shaqeeya marka uu yahay for grouped oo ah discrete macnaha oonan ahayn mid min hebel ilaa hebel aan ahayn bay ka dhigan tahay. Okay, marka uu yahay se continuous group data markuu yahay saa looga shaqeynaya. Continuous group markuu yahay stepka koobaad maxaa la sameynayaa, si mar walba waa prepare, maxaan sameynaynaa frequency distribution kana sameynaynaa. Frequency distribution markaan aan sameyno qaybtan waan usoo noqon doonaa. muxuu yidhi if not continuous haduun ahayn make adding 0.5 and subtract with goodhaweyd maxaan idhi mid class boundary-ga see loo helaa plus or minus 1/2 of deviation bay ahayd 1/2 of deviation. That means in order to one mar walba inaad continuous aad ka dhigataa inaad maxay raadisid class interval inaad raadisid. qaacidadan mar walba waxay leedahay meel lagaga shaqeynayo class interval meel laga shaqeeyo leedahay. Okay, then maxaa hadana waxaan sameynaa find the class where the median is located. medianku meesha uu ku dhex jiro iyaan raadinaynaa. see loo raadinayaa, it is the lowest class for which the cumulative frequency equal exceeds n number 2. then marka xigta maxaa la sameynayaa determine the median by using the following formula. formulagan marka ayaa la isticmaalayaa oo lagu soo saarayaa abay ka dhigan tahay, right? xaggan imka maxaa leenahay formulagan wuxuu sheegayaa waxaan leenahay wuxuu sheegayaa which is bl waa lower limit classkeennii min baaxadda ahaa class intervalkeennii ka ugu yar upper iyo lower buu leeyahay, classka ugu yar baad qaadanaysaa. ndu waa number of observation keeni weeyaan. cfb wuxuu noqonayaa the cumulative frequency in a class preceding the coming before the class containing the medium. classkii medium kala ahaa frequencygii ka horeeyey ama kaas yuu yahay cfb-gan. fc-guna wuxuu yahay the number of observation frequency in the class containing the median. classkii medium ka hayay frequencygiisii intee uu ahaa. intervalkuna waxa weeyaan the class interval ama width of the class. macnaha goordhaweyd waxaan yidhi xagga plus or minus ku dara waa tan aydaa si loo raadin lahaa waxa weeyaan waa 0.5 plus or minus ayaa laga dhigayaa. macnaha bl-ka iyaad ku daraysaa iyaad ka naaqusaysaa 0.5 up a ul min ama upper limitkana maxaad ku daraysaa 0.5. be mind bl which is a lower limitka maxaad ka naaqusaysaa 0.5 aad ka naaqusaysaa. upper limit oo isaguna ah maxaad ku daraysaa 0.5. labada markaad kala jirtid maxaad helaysaa igaasaad helaysaa. fadlan inaad fahantiin bal aan exercise aan kaga shaqeyn. okay, xaggan waxaana la siiyey exercise yar baana la siiyey. maxaa la yidhi weight in kilogram iyo number of apple-kii baana la siiyey. weight markaa from wuxuu u dhexeeyaa 410 ilaa 420 inta u dhexaysa waa 410. 420 ilaa 430 inta u dhexaysa waa imisa waa 20. 430 iyo 440 inta u dhexaysa waa 42 so on. xaggan imka waxaad fahmi kartaan mar walba inaad iska fiirisaan ay tahay 20 iyo okay. marka waxaanu sameyneynaa waa kan sanaan usoo dhigaynaa. waxaanu sameyneynaa waa frequency step 1 maxay buu yidhi frequency distribution sameeya. kan aan soo qoraynaa 410 waa kan xagganan weightigii xaggan aan kusoo sheegaynaa. number of apple-kiina xaggan kusoo sheegaynaa. cumulative frequency sidii loo sameeyo way dhib yartahay. macnaha 14 lagu daray 20 waa 34 lagu daray 14 waa 76 lagu daray 54 waa 130 lagu daray 45 waa 175 lagu daray 18 waa 193 lagu daray 7 waa 200 way noqotay, right? marka maxaan xaggan step 2 maxay buu yidhi step 2 waxaad aan raadisaan buu yidhi find the media class
class uu ku dhex jiro mediagu soo raadiya buu yidhi classkaas maxaa lagu raadinayaa waxaa lagu raadinayaa n over 2 baa laga dhigayaa buu yidhi ngeena xaggan maxay ahayd waa 200 xaggaas ama taa baa la isku daraya ama lambarka u dambeeya la qaadanaya 200 marka laba loo qaybiyo waa 100 marka ka boqolaad frequency distributionka dhexdeeda observationkeena boqolaad ayuu ku dhex jiraa maxaygeenu class mediageenan class intervalkiisu xaggaas ku dhex jiraa then boqolku xagee buu ku dhex jiraa boqolku wuxuu ku dhex jiraa 76 wuu ka badan yahay 130 wuu ku dhex jiraa laga yaabaa 170 marka meeshaas ku jira 130 kaas ku dhex jira 130 ka ku aadan waa xagee ka ku aadan waa min 440 min ilaa 450 saas min 440 ilaa 450 kan imka marka muxuu noo yahay uga dhigan tahay xaggaas mediageenu xagee ku dhex jiraa wuxuu ku dhex jiraa xagga laakiin weli ma naan fahmin wuxuu yahay inaanse sii fahano maxaan isticmaalinaa marka dhigan tahay marka qaacidadii baan isticmaalaynaa right marka qaacidada isticmaalinaya waa tan qaacidadii maxaan noo ahayd waa it is lower boundary limit number of observation over 2 soo saamana dhihin okay xaggan imka in yara fiirsada hadda waxa aan sameyn bl taas waa tee bl tan waxa weeyaan waxaan niri waa 440 class boundarygeeni 440 iyo intee buu ahaa 450 buu ahaa marka lowerku waa ka 440 qaybtaas ku dhex jira well right then n-daas waan haysanaa waa waxa weeyaan waa 200 cf tuna waxa weeyaan wuxuu yiri classka xaggan laga helay boundaryga laga helay mediaga laga dhex helay ka horeeya which means waa 76 gaas noqonaya classkan ka horeeya waa kee waa ka fc daas maxay noqonaysaa fc wax weeyaan class widthgan dhexdeeda class boundarygan dhexdeeda frequency-ga ku yahay macnaha 54 weeyaan then maxaa soo har aidaas inaad fahantid ba aidaas maxaan ku yidhi baa ahayd waa la kala jarayaa waxaa la kala jarayaa labadaas la kala jaray 440 laga jaray 450 macnaha waa 10 kan waa maxay waa continuous aduuna continuous ahayn maxaa samaynaysaa mar walba kan inuu continuous waxaad ku ogaan kartaa xaggaas waa 440 hoos 440 450 hoos 450 460 hoos 460 marka macnaha datagani wuu isku tuusan yahay waa continuous ku aan continuous ahayn oo broken jira ka broken marka koowaad maxaa ka dhigaysaa dataga waxaad ka dhigaysaa continuous head continuous ayaad ka dhigaysaa 410 kaas maxaad ka jirtaa 0.5 ayaad ka jirtaa macnaha maxay noqonaysaa 400 eber 9.5 bay xagga noqonaysaa ka xaggana maxaa samaynaysaa 420.5 kan waad ka naaqusaysaa kana waad ugu daraysaa kan waad ka naaqusi kana waad ugu dari kan waad ka naaqusi kana waad ugu dari kan waad ka marka saas samaysid muxuu noqonayaa datagii continuous buu noqonayaa laakiin mar walba markaad aad kaga shaqaynaysid qaacidooyin kale waxaad qaadanaysaa inkastoo adoo saa ka dhigay continuous ka dhigtay originalkiisii baad ka dhex qaadanaysaa kan boundary limitka originalkiisii macnaha kii aadan ku darin 0.5 kaas aadan ka jarin macnaha ayaad soo qaadanaysaa so it was simple then it's a matter of substitution waa inaan datagan xagga galgelino way ka dhigan tahay bl keenu waa kan waa 420 kii xaggaan soo qaadanay kaas waa 200 cfi waa 76 fc daas waa 54 lagu dhuftay class intervalkiisu oo ah 10 440 min laba marka loo qaybiyo 200 xaggaas waa 100 baan xagga ka haysanaa 100 marka 76 laga jaro maxaan la haysanaa 24 baan haysanaa 54 xaggaas hoos bay soo degaysaa 10kiina xaggaas 10kii hoos buu soo degay then marka 24 markaan u qaybinay 54 maxaan xagga ka haysanaa ka dhigan tahay waxaan ka haysanaa 0.4444 baan ahaan ka haysanaa intaas 0.444 lagu dhuftay 10 markaan 10 aan ku dhufano maxaan haysanaa waxaan haysanaa waa 4.44 4.44 aan ku darnay
lagu daray 4 eber waxay noqonaysaa markaa waxaan helnayba ka dhigan tahay 44 444.44 ayaan helnayba ka dhigan tahay. This is how to find for continuous group data. Then thus the media weight of the apple is 444.44 gram. Okay, median for continuous group data. Still waan sii soconnaa example labaad baan haddan ka dhex qaadanaynaa. The following is the mark obtained by 114 students in a college. Already waan loo soo sheegay 140 arday ayaa qaadatay buu yidhi. Markii waa kan. Markii 7 arday maxay keeneen 10 ilaa 19 bay u dhexeeyaan. 15 arday maxay u dhexeeyaan 20 ilaa 29 bay u dhexeeyaan. So imika xaggan waxaan fiirin karnaa 19 ilaa 20 ardayda u dhexeysa waa intee ma jiro. Marka waa it's a broken waa data kala jajaban weeyaan. Be mind marka kan waxaan isticmaalinaa san hore u sheegnay waa qaacidooyin the same procedure kan isticmaalina. First of all what we have to do was preparing the cumulative frequency distribution. kaasuu yahay ayaan xaggan usoo qeexnay. macnaha imika xaggan imika ila fiirsada waxaan xaggan soo qaatay bay ahayd isagii maxaan ka dhigay continuous baan ka dhigay 9.5 up to maxaan ka jaray xagga 0.5 baan ka jaray muxuu noqday 9.5 kaana maxaan ku daray 90.5 midna waan ka jaray midna waan ku daray. marka imkaan seebu yahay 19.5 39.5 then datageena muxuu noqday it's continuous buu noqday. n-geena waa imse waa 140. marka maxay xigtaan raadinayna waa maxay waa classka meesha uu ku dhex jiro waa the median class waa ina raadinaa median classka xagee ku dhex jiraa. maxaan sameynaynaa n-daasaan u qaybinaynaa 2 n-da marka 140 markaan 2 u qaybino maxay noqotay 70. itemka 70aad buu ku dhex jiraa. ka 70aad waa xagee baan ka dhex heli karnaa waxa weeyaan waa 65 uu kaa kuma dhex jiro kan uu ku dhex jiraa 95 kaas 95 kaas iyo toos soconaynaa. macnaha markaa waa kee waa kan right waa xaggan. marka it's only buugaagtu badanaa bl imka xaggan classka wiilkeen waa intuu u dhexeeyaa ka iyo kaabuu u dhexeeyaa right ka iyo kaasuu u dhexeeyaa. bl keenu markaa kaasuu noqonayaa right. buugaa qaarkood laakiinse maxay soo qaataan waxay soo qaataan kontonka caadigay soo qaataan. annagu xaggan maxaan soo qaadanay 49.5 baan qaadanay ayaan qaadanay noo ka dhigan tahay. okay qaacidadii ayaan soo stepkii saddexaad waa qaacidadii waa inaan aan kaga shaqeynaa qaacidadan kaga shaqeynaa markaan rabno waka as you see bl ga maxaan ka dhignay 49.5. macnaha waxaan aan xaggan idinku sheegay labada siyaabo waa laga shaqeyn karaa. maxaa final resultgeenu maxaa markaa khaladka iman karaa it's a matter of 0.5 error inuu yimaada ka dhici karaa. marka buugaa qaarkood ku shaqeeyaan buugaa qaarkood ku shaqeeyaan as a most convenient way ta ugu saxsan waa qaabkan aan hubo ya qaabkan weeyaan laakiin qaabka kalena waa laga shaqeeyaa. then 49.5 oo kani ah n-geeni waa ka then xaggan maxaan ka helaynaa 51.167 ayaan helaynaa bay ka dhigan tahay right. okay graphical method see baa looga shaqeynaya. qayb saddexaad ayaa jirta oo medianka qaybta afraad ee medianka laga shaqeynaya waa a graphical method. graphical method see looga shaqeynaya stepya buu leeyahay isagana ayuusan leeyahay. stepka koowaad marka koowaad waxa weeyaan waa inaan ogive waa inaan sameynaa ogive graph ogive kaas see baan u sameynaynaa. first of all class interval waa horizontal axis class interval keenii baan ku qoraynaa. macnaha classka min hebel ilaa hebel u dhaxeeyo xaggaasaa lagu qorayaa horizontalka lagu qorayaa. at the same time cumulative frequency-gana maxaan ka dhigaynaa vertical axis maxaan ka dhigaynaa cumulative frequency-gaasaan ka dhigaynaa. class intervalkeena maxaan ka dhigaynaa horizontalkaan ka dhigaynaa. marka waxaan haddana raadinaynaa less than ogive iyo more than ogive iyo more than ogive. marka labada graph meesha intersect isku sameeyaan ayaan hadafkeenu waa inaan meesha aan soo saarno.
then horizontal line baan iyaan sameynaa iyaan kasoo sameyneynaa haddii based on numberkiina la siiyey haddii uu odd yahay hadduu even yahay numberkiina la siiyey haddii uu odd yahay n over 2 hadduu even yahayna n plus 1 over 2 intaan sameyno ayaan soo saareynaa numberka dhexdhexaadka ay ka dhigan tahay. markaan aan saa sameyno kabacdi then perpendicular to taa markaan aan sameyno waxaan helaynaa our mediageeni waan helaynaa. just have a look bal simple exampleka aan kaga shaqeyno. simple exampleka markaan aan kaga shaqeyno waxa weeyaan waxaana la siiyey example draw datagana la siiyey. dataga markana la siiyey datageeni waa kan number of people ka iyo number of age ka u dhaxeeyeen it was a continuous, right? then maxaan sameeynaa waxaan sameeynaa it's a less than iyo greater than baan sameeynaa. less than iyo greater kan same baan sameeynaa. first of all marka koobaad waxaan sameeynaa for example 000 egta koobaad xaggaas 0 maaha 00 waa class boundary gaan sameeynaa 0 up to 10 up to 0 yuu ka socdaa 10 baa yaa socdana 10 xaggaas tagay 20 soddon 40 konton 60 70 80 90 iyo 100 saasaan u taxaynaa ka dhigan tahay. qaybtan xageemayaa markaa qaybtan lagu qorayaa it was a horizontal keeni weeyaan. vertical keenuna maxay baan nidhi cumulative, right? cumulative kasee loo yarayaa 6 lagu daray 12 18 lagu daray 10 18 lagu daray 32 konton 72 saasa markaa ayaan ka aan u helinaa ka dhigan tahay. ka bacdi haddana mid kale ayaa jirta oo muhiima waxaan soo saaraynaa less than iyo more than oo ah ogive graafkeeni ogive ka ahaa ayaan less than iyo more than keen soo saaraynaa. macnaha 0 baan soo qaadanaa. 0 maxaa ka hooseeya 0gaas maxaa ka hooseeya dhinaca ka xiga waxba iswan ever. 0ga maxaa ka koreeya dhinacan waxaa ka koreeya datagan inta tiradaas oo dhan baa ka dhayaa ka koreysa, right? intan oo la isku daro oo dhan waxay noqonaysaa waa 127 then 10 baan imanaynaa 10 maxaa ka horeeya 10 waxaa ka horeeya 6 oo aya ah 6 baa ka horeysa, right? 6 10ka waxaa ka horeysa waa 6 wadaranaysa. 10 maxaa ka dambeeya 10 waxaa ka dambeeya waa intan la isku daray. macnaha 120 ba laga jarayaa 127 marka 6 laga jaro waa 121, right? haye 20 marka joogo 20 maxaa ka horeeya 20 waxaa ka horeeya 12 lagu daray 6 waa imisa waa 18 waxa ka horeeya waa 18. 20 maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya waa 127 laga jaray 18 oo ah 109. then the same procedure ayaa lambaradaasaan helayna. then lambarada markaan hernay muhiimkeenu waxa weeyaan waa inaan graph aan sameyna. graafkiina markaa waa kan horizontalkaas maxaa lagu sameynayaa waa dataga 0 ka bilaabaya wuxuu 10 20 30 40 60 saas u soconaya, right? korna what's our cumulative frequency weeyaan wuxuu ka bilaabayaa 0 oo wuxuu ku dhamaanayaa 127 laakiin in our case ilaa 140 baaba sii gaarsiinay. marka su-aashu waa waxa loo baahan yahay waa kani waa inaan sameynaa labadan graph inaan sameyno. marka koobaad markan uu waa 0 iyo imsuu dhaxeeyaa ever iyo ever buu ka bilaabayaa, right? kan ever buu ka bilaabaya ever maxaa ku xiga marka uu 10 uu yahay intuu marayaa 6 buu aadayaa. markuu xagga uu 10 gaaray 6 buu aadayaa meelaha. markuu uu 20 gaaray muxuu gaarayaa 18. markuu uu 40 gaaray muxuu gaarayaa 60. then graafkaas ayuu noo noqonaya markaan saa u sawiran graafkaasuu noqonaya. at the same time markaan xaggan aan 0 joogno muxuu kan ahaa 127. markuu xagga 0 joogo 120 xaggaas ku imanaya. markuu uu 10 yahay muxuu yahay
hoos buu soo degayaa meelaha 121 markuu 20 yahay muxuu noqonayaa 109 meelaha soo degayaa markuu 30 yahay maxay meelaha soo degayaa then kan saasan sameynaya marka labadan graph meel bay isugu imanayaan dhaxbartankaas meesha ay isugu imanayaan still wali ma hubno maxaan sameynaynaa xaggan maxaa la siiyay waa 127 it's an odd right maadaama uu odd yahay maxaa lagu darayaa waxaa lagu darayaa labo I mean 1 baa lagu darayaa n plus 1 waa anaga naride then 127 plus 1 128 128 marka laba loo qaybiyo imisa inoo noqonaysaa 128 laba u qaybi 64 sorry xaggaas waa 64 qaybtaasi waa 64 bay noqonaysaa 64 baan xagga iyaan helinaa 64 kii aan helay ayaa maxay sameynaa uu yidhi qaybtana 64 ka dhex raadinaynaa meel ay ku aadan tahay 64 meelahaas saaban marka ayaan line baan ayaan u sameynaa line baan sidaa u xariiqaynaa lineka markaa saa u xariiqno ayaa meeshii ay isugu yimaadeen graafkaas iyo linekaas inoo noqonaysaa bartaas markaan haddana mid kaloo perpendicular hoos u xariiqno waxaan helaynaa our mediankeedii baan helaynaa oo ah 42 bay ka dhigan tahay I hope inaad fahanteen baan aanu rajeynaya marka bal fadlan aan soo gabagabayno laba example oo muhiima aan ku darno cashirkan oon saa aan kusoo gabagabayno cashirkan marka xaggan waxaan la siiyey waxaa la find the missing frequency-ga soo raadiya frequency-ga meesha ka dhex maqan soo raadiya annagoona la siiyey maxaa la siiyey the median of the shop find the missing frequency for the following distribution of daily sales of shop given that the median sale of shop is median keeni markaan maalin walba mediaga muxuu dukaanku soo gadaa laga helaa waa 2400 weeyaan markaa soo raadiya baa la yidhi in another was sell in maxaa yahay in 100 in sell in 100 macnaha waxay ka dhigan tahay waa 0 up to 110 up to 1000 bay ka dhigan tahay xaggaas 1000 laba eber ba xagga lagu dariyaa laba eber ba xagga lagu dariyaa xagga laba eber marka inaan isku mid ka dhigno ama kanaan laba eber ku daraynaa ama total sale-kaasaan oo mediageeni baan labada eber ka daraynaa macnaha mediageeni waa maxay xaggaas waa 24 sale datageeni waa kan number of shop keenina waa kan waxaan muhiimadkeenu waxa weeyaan inaan raadino taa seen ku raadinaa it was simple kan muxuu yahay it was waa group continuous data group continuous data maxaa lagu fiirinayay waxaa lagu fiirinayay qaacidadii ahayd x waxay la mid tahay bl plus n over 2 cfb over qaacidadii taas ahayd right then markaa meeshan maxaan odhanaynaa assume or let me assume meeshan aan raano a let the missing frequency be meesha aan raano a markaan a aan raano stepkii koobaad aan kaga shaqeynay qaacido walba noocan maxaa ahayd frequency distribution baa la samaysanayay that means cell in 100 kii xaggan qaybtan aan isu taxaynaa number of shop kiina xaggan aan isu taxaynaa frequency baan raadinaa frequency-ga macnaha maxay kaas waa 5 marka lagu daro 25 waa 30 marka lagu daro xaggan a-dii maxay noqonaysaa 30 lagu daray a 30 lagu daray a marka lagu daro 18 waxay noqonaysaa 48 macnaha 30 iyo 18 kan baa isku darmaya eedweysiyadu way loo sii soconaysaa 48 lagu daray a 48 lagu daray 7 maxay noqonaysaa 55 lagu daray a intaas ma fahmi marka maxaan aan ka dhex garan karnaa waxaan ka dhex garan karnaa inta marka la isku daro waxay noqonaysaa 5 iyo 50 lagu daray a ama taa waa isku mid right then maxaa xigtay waxaan fiirinay meeshii laga helayay class limitka aan laga helayay class limitka already wuu noo sheegay xaggan waa imse waa 24 ka xagee buu u dhexeeyaa 24 wuxuu u dhexeeyaa waa 20 min 30 qaybtaas ku dhex jira qaybtaas maxay qaybtii laga soo saaray mediageeni weeyaan then qaybtan haddii ay tahay qaybtii mediagii laga soo saaray 20kaas wuxuu noo noqonayaa bl keeni noo noqonayaa
soddonkaasi muxuu noo noqonayaa soddonkaasi wuxuu noo noqonayaa c f b buu noo noqonayaa kani eedaas xagga maxay noo noqonaysaa c f c hoose loo wada qaybinayana taas inoo noqonaysaa right then qaacidadiini waa tan b l daas waa 20kaas n daas waa imse waa n waa intaas xaggaan haysano weeyaan c f b waa ka horeeya ba la yidhi ma frequency class ka horeeyo waa 30 f c geesina waa ka frequency classka frequencygiisa waa yima la yidhi waa isna waa te waa eedii aan nalooyan xaggaas then ayduna waa maxay waa 20 laga naqsay 30 laga naqsay inta classka inta u dhaxayso waa imse waa 10 iyada okay then minkaas waan haysanaa oo la soo siiyey waa 24 waxay la mid tahay blk oo 20 n-daas waa maxay waa 55 lagu daray a 55 lagu daray a oo laba loo qaybiyey laga jaray c f b gaas muxuu ahaa waa 30kaas loo qaybiyey f c gaas muxuu yahay waa a-daas lagu dhuftay 10 right 20kaas haddaan dhinaca usii wareejino 24 marka laga jaro maxay noqonaysaa 20 marka laga jaro waa 4 right shi labadaa marka xaggaa lagu dhufto maxay noqonaysaa 60 bay noqonaysaa xaggaa 60 macnaha 55 lagu daray a laga naaqusay 60 loo qaybiyey 2 bay noqonaysaa sooma eedan 10 marka loo xaggan haddaan xaggaa geyno on 10 over n raana it's possible sooma marka 55 marka laga naaquso 60 maxaan haysanaa negative 6 baan haysanaa xaggaa negative 5 baan haysanaa macnaha 4 eedii waan haysanaa marka labadaa la ka jaro waa negative 5 over 2 waa 10 over a somadan fahmin maxaan samayn karnaa labo waan u jeri karnaa xaggaas ama labo xagga intaan u jarno min labo xaggan min labo xaggaa 5 baan haysanaa right 4 waxay la mid tahay 5a minus 25 saas waan oran karnaa in another word marka haddii aan labada xaggaan usii qaybin labada dantaa ku dhufano waa 8a bay imanaysaa 8a bay imanaysaa xaggaa 2a ba xaggaan haysanay 2a dii baan qaadno xaggaaba geynay 8a bay noo noqotay xaggaa marka maxaan haysanaa 10 marka a lagu dhufto waa 10a 5 marka lagu dhufto 10 waa 15 then a da marka xaggaan 15 xaggana keenid 8 marka xaggaa la geeyo waa 2a waxay la mid tahay 15 then a waxay la mid tahay 25 right simple marka maxay missing point waxa ka maqan maxay ka dhigan tahay 25 weeyaan numberka xaggaa ka maqan bay ka dhigan tahay okay waasif aday laba number ka maqan yihiin seen u raadinayna ama seen u helina imka xaggan waxaan la siiyey total number of family baan la siiyey total number n gi baan la siiyey walaakiin laba meeshii ka dhex maqan kan seen u raadinayna simple maxaan sameeynaa first of all waa table-kii baan samaysanaa table-kii oo aslan qaybta xaggana soo taxnay qaybta kalena xaggana soo taxnay qaybta kalena xaggana marka assume maxaan oranaynaa xagga labada meelood taas f1 adaan f2 and runnable f1 iyo f2 xagga aan raano then maxaa step 1 cumulative frequency baan raadinaynaa cumulative frequency loo raadinayaa ta koobaad waa 14 lagu daray f1 intaa lagu daray 27 14 ka iyo 27 ayaa isku darmaya waa 41 f1 bay noqonaysaa xaggan f2 41 f1 iyo f2 iyo xaggaas noqonaysaa 15 56 f1 f2 intan maxay noqonaysaa intan maxay ka dhigan tahay waa n-geeni ogsoonow maxaana la yidhi waa 10 waa 100 baa la yidhi tirada numberka xaggan frequency-goodu waa maxay baa la yidhi waa 100 macnaha intani maxay la mid tahay 100 bay la mid tahay xagga hal equation baan ka leenahay 100 wuxuu la mid yahay 55 lagu daray f1 lagu daray f2 right 54 marka xagga geyno maxaan haysanaa xaggan 44 waxay la mid tahay f1 lagu daro f2 xasuusnaada equation-kan tan xagga inoo dhiga stepkii labaad maxaan isticmaalaynaa qaacidadii baan isticmaalaynaa intaanaan qaacidada isticmaalin ka hor waxaana la yiri the median is known to be mediankeenu waa imisa waa conton right conton xagee ku dhex jiraa meeshaas ku dhex jiraa right takaru ku jiraa 14 up to 16
then qaybtaas maxay ka dhigan tahay waa our class kii laga helayay maxay ahayd mediaga laga helayay weeyaan bay ka dhigan tahay xaggan then 40 waa bl geeni buu noqonayaa 40ga ta ka horeysa oo 14 f1 maxay noqonaysaa fcb geeni weeyaan 24 kaas muxuu noqonayaa f frequency geeni fc geeni buu noqonayaa hay ka dhigan tahay ay geenina waa maxay 40 marka laga 6 marka 40 laga jaro 20 baan ka haysanaa okay right waa kan wuxuu soo qaatay waa 40 min 6 waa our class geeni buu dhahay okay waxaan isticmaalinaa equation kana isticmaalinaa simple konton waxay la mid tahay bl keeni waa 40 waa aniga soo sheegay waa qayb waa lower boundary limit keeni waa 40 n geeni waa loo soo sheegay waa 100 oo loo qaybiyay 2 cfp geeni muxuu ahaa waa kii ka horeeyay aniga waa 14 plus f1 buu noqday fc geeni muxuu ahaa kii ka horeeyay waa frequency waa 27 lagu dhuftay i geeni maxaan soo saarnay waa 20 right marka 20 kaas waa konton laga jaray 14 laga sii jaray f1 oo loo qaybiyay 27 lagu dhuftay 20 wuxuu lamid yahay 10 mama 10 xagga markaan ku geyno xaggan 10 xagga maxaa noo heliya 2 noo soo haraysa right 27 ka xagga markaan geyno waa 27 bay noqonaysaa xaggan maxaan haysanay 2 haysanay konton marka laga jaro 14 konton marka laga jaro 14 waa imisa waa 36 xaggaas labadaas waa imisa waa 36 xaggan maxaa noogu soo hadanayd 2 noogu jirtay lagu dhuftay 2 72daas waa saasay ku timintay way ka dhigan tahay then xaggan maxaa haysanaa negative f1 baan haysanaa xaggan maxaa haysanay 2 da markaas lagu dhufto f1 maxay noqonaysaa negative 2f2 bay noqonaysaa okay then tani waxay ka dhigan tahay haddaan 2f aan xaggan usoo gudbino 27 xagga aan geyno haddaan 2f aan xagga geyno 27 xagga soo geyno 72 laga naaqusay 27 minus 27 imsaan haysanaa bay ka dhigan tahay 45 ba xagga noogu soo hadhay qaybtaas maxaa wareegtay waa 2f over 2 markaan raano divided by 2 waxay noqonaysaa ka dhigan tahay 22.5 geeni weeyaan frequency geeni f1 which means 23 markaan la sii durkiyo oo shanta xagga loo soo gudbiyo waa 23 baan haysanaa bay ka dhigan tahay then qaybtii hore aan xusuusnayd waxay ahayd 44 bay ahayd labada marka la isku daro f1 iyo f2 macnaha 44 marka laga naaquso 23 oo tan ah f1 f2 na maxaan helinaa bay ka dhigan tahay 21 baan helinaa bay ka dhigan tahay waa kan kii yaruna waa ku 44 marka then 21 noqonaysaa ka dhigan tahay I hope inaad fahanteen baad yaan rajaynayaa cashirkan marka aan soo gabagabayno bal faa'iidada iyo advantage iyo disadvantage aan medianka aan fiirino advantagekeeda koobaad waxa weeyaan it's easily computer si dhib yar baa loo calculate garan karaa macnaha wax saa usii complex amale ta kale labaad is not affected by extreme value si walbuu lambaradu ay labada geesood bay u weynaadaan ka dhaxay wuu dhaxayaan waxba isma bedelayo it cannot be easily located even if the class interval in the series are unequal it can be easily located haddii xitaa class intervalku uuna seriously equal uun lahayn si dhib yar yaan ku heli karnaa qaybta saddexdaas waa advantagekii uu lahaa medianku ayaa disadvantagekiisu muxuu yahay it is amenable to further algorithmic treatment in further laga sii shaqeeyo lama awood ka dhigan tahay it is a positional average and it is based on a middle item only waxaan ka sheegaynaa wax weeyaan waa wuxuu tilmaamayaa dhexdhexaadka wax faa'iido meesha noogu fadhiyay ma jiro ka dhigan tahay it does not take into account the actual value of the item in the series
seriska marka ay saa haddii series lambaro iskugu xigaan ay yihiin serieska intii u dhexaysay ma sheegayee wuxuu sheegayaa lambar aan jirin iyo meesha uu kusoo dhex darayaa ayay ka dhigan tahay. Then saddexdaas waa disadvantagegeedii, intan kuna waa advantagekoodii. Then casharkii maanta xaggan aan kusoo gabagabaynay. fadlan haddii aad leedahay wax tusaalo oo la xidhiidha fadlan noogu soo input garee. If you have any question, feel free to contact us through our comment section or Facebook, Instagram, LinkedIn ama YouTube-kooda waa nagu soo sheegi kartaan. Coursiga aan meesha kasoo sheegaynay waxa weeyaan course statistics classification and tabulation on in other word generally waxay ka dhigan tahay waa measure of central tendency baan ka sheegaynay oo statistics ah. waxaana ii soo gudbinayay wuxuu ahaa waa Hanuun Virtual Academy. waxaan soo gudbinayay waa anigoo ah engineer Abaadir Daahir. fadlan cashirka loo xiga oo lamida intaan ku gudmayno waxaanu aan idinkaga tegaynaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.